xirta ulamadow sababta magacani ugu baxay waxaa la sheegay in markay waxbarashadu u soo dhamaato loo diri jiray muddo hal sano ah meel lagu magacaabo sulsuul amaba saluul oo u dhaxaysa mustaxiil iyo buurcukoor kadib marka uu soo dhammaato waxauu ninkaasi la iman jiray ul waxauna ku soo laaban jiray xarunta xaaji nuure sheekh cumar sheekh axmed oo lagu magacaabo meel ku taalla gal cusbo oo waxaan ka badnayn 5 kiiloomitir u jirta buurcukoor muddo aan badnayn kadibna sheekhu waxa uu u idmi jiray inay tagaan oo waxa ay barteen dadka sii baraan ushu waxa ay calaamad ama shahaado u ahayd in ardayga wata uu qalin jabiyay ama waxbarashadiisa soo dhamaystay ushaasi ma ahayn mid geed madow laga soo gooyay ee waxay ahayd mid lagu madoobeyn jiray dufankii ama subagii la marin jiray xaaji nuure iyo xirta ulamadow waxa ay noqdeen dad cilmi badan oo xirta ka soo baxda ay dadka wax sii bari jireen odayaasha iyo culimada buurcukoor oo SRTV uga waramay qaabka ay xirtani la oran jiray ulamadow ay cilmiga diiniga u baran jireen ayaa sheegay in culimo ka badan 3,000 ay ka soo aflaxday xirta ulamadow sheekheedii xaaji nuure sheekh cumar sheekh axmed ayaa la oran jiray dugsiga jaamacadda ee wuxuu ku aali jiray meesha la yiraahdo gal cusbo xirtaasi cadadkeeda dad ka yaraynayeen way jiraan laakiin sida muhiimadda asalka ah xirta ka baxday dugsigaasi ka qalin jibisay ilaa 3,000 oo nin baa lagu tilmaamaa dadka xirtaasi ka mid ahaa intooda badan inkastoo Soomaaliya idil ay ku jirtay laakiin inteeda badan waxay ahayd dadkan Soomaali galbeed asalkooda u yahay magacaani xirta ulamadow waxa ay ku baxday wuxuu ahaa xirta ninkii qalin jabiyo oo jaamacadaasi waxbarashada dhameeyo baa waxaa la siin jiray sida hadda shahaadooyinka qofkii qalin jabiyo loo siiyo ul bakoora ul madow oo madax kuusan leh oo dabadana murjin uu kaga jiro oo madaxeeda uu kuusan yahay ishaasaa waxay u ahayd xirta yaa calaamad u ahayd sheekha horta waxay la tahay waxbarashadiisana hagaasay ahayd meeshuu soo degayna Tanzania ahaydoo 20 madfaca ayaa loo riday markuu soo degay waxaan taarada ku hayaa in 40 ruux qofka loo ridayo bahasha oo madfaca loo ridayo la aqoonsanayo 40 ruux yaa mas'uuliyad su'aalayso 40 kaas marka way su'aaleen asagoo daymoon uu jawaabtii u tuuray marka hadee fadhigiisana gal cusbo ahaa xirtana hadee waa sida idin sheegay adeedeeda way badneed ulamadow baan la jiray markii ugu horeysay in 60 nin oo horeysay horta yaa mar qalin jabso mar dhaqaaqday markii wax barteen dadkaas buuna ahaa dadkaas halka aan joogno waa degmada Feerfeer qabalaha Buurkur taariikhda aan ka hadlayno waxay saldhigeeda ahayd oo ku salaysnayd meesha la yiraahdo Galas waxay noo jirtaa meel 3 kiiloomitir 4 kiiloomitir waa qabalayaasha degmada Feerfeer kamid ruuxan qarash wadan oo sahay wadan iyo halkii intuu yimaado xirta inta dhan dadka deegaanka ee meesha degan ayaa jari jirtay jal waxa la yiraahdaa macnaha ruuxa markii la kafaala qaadayo oo la qabanayo qoyskiiba waxa suurtagal ahaan jirtay inay 3 nin 4 nin ay ku aado oo 3 nin halkaas macnaha reerkaas la noolaadaan ma jirin magaalo iyo meel wax lagu cuno sokortan iyo waxaan cunaynay bariiskan iyo lama aqoonin xitaa dadka meesha jooga way ka carari jireen xilliyada Talyaanigu u yimid bariis iyo sokor intuu ugu daadiyeen gurantiina diidi jireen oo dad kale intii xoolaha iska cunjeen waxay ahaayeen dad macnaha waxa ay xogsadaan ay shaqeystaan sac ay maalaan hasha ay maalaan ratiga rida ay maalaan iyo beer ay tabcadaan masigo ay ka soo goostaan cuntadooda intaas bay xirta culimadu shay ku baxday muhiimadda aan ka soo qabanay waxa weeye ul la madoobeeyo oo la subki jiray oo jaa'izo loo bixin jiray jaa'izo waxa weeye waa shahaadada meesha laga bixiyo certificate-ka la qaato markii qofkan uu wax bartay cadeynaysa tiibay ahayd macnaha u shaamacnaheedu wax kale inta ma ahayn waxaana weeyaan xirtu markuu kitaabka uu dhameeyo intaan oo kale kitaabkii loo dhameeyo kitaabkii matalan ka soo qaad qaasimiga markii loo dhameeyo way tagi jireen meeshan geedaha waaweyn ee sulsul hoosteeda ayay fariisin jireen baa halkaas uu kitaab ku soo xifdina uu ka baxaa gal cusbo imaanaya xirti kala joogto oo kutubihii intaas oo faniya socoto oo midba nooc ah markaas uu akhrinaya kitaabkii baa loo dhageysani ay kitaabka la hadin loo dhageysani kitaabkii loo dhageysto dhan oo jaa'izada la siinaya qalin jabiyo u shaamadow loo subki jiray loo madoobeyn jiray sidaa bay mataqaanaa ku bixirto ulamadow waayu kuwan macnaha Sheekh Maxamuud kan uu ku magacaabay marka warka aruuriskiisa sidaas buu noqonayaa
المهم شيخ وحيالها وجوني ذكوا وحكمي هيد كتابة ماشي جري جرين إلى الآن هذا سيدتمات كي وحي كده بيه ملايين كتب أو قرن جيسك أفريقيا أن أولي جرين قرن أفريقيا أيها سو جاري معناه سيدا سكلا واجان الشيخ وحوك كان كتابه حجاز بس يالي وهل كان أنجري جرين أيو كان اللي هذا معناه وطن كوب اللعبي مركا كتبيه زين حرتي دون كردن كفر رئيسي علماء أوجب بدنا متقنا وحبر جرين وحي أوبنا علماء هذا لقيش كيني سومالي قلب أوبنايد إلا يوغوي قلبت انت هاي متقنا مهمة كونفورتا حتى متقنا رهيب بدنا وكيمت وحكوا برتو مركز دمانه بار نيروك علمي كوفا فيها كمذها مركز إناس كسو كوبينا شيخ تاريخ ديسي